qalabkan caafimaadka ee labada kontiinara ee ay ku soo deeqeen ururka jaaliyadda Soomaaliya Swedish Som ee dalka Sweden ayaa madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo wareejintaasi ka qayb galay ayaa waxa sharaxaad ka siiyay madaxweyne ku-xigeenka madaxa dawooyinka iyo qalabka ee wasaaradda caafimaadka Cusmaan Ibraahim dhanka kale Yuusuf Cabdullaahi Yaasiin oo kamid ah madaxda ururka Swedish Som ee deeqda wareejiyay ayaa isna halkaas ka hadlay maanta halkan ku wareejinay 2 container oo ah hordhac qalab oo lagu talagalay wasaaradda caafimaadka qalabkaas oo isugu jiray moogtay ultrasound iyo x-ray iyo operation theater iyo suction pump intoodii badan halkan wada taalo marka waa hordhicii qalabkii ugu horeeyay siino wasaaradda aduulaan nafteena u daayana waxa imka u qorshaysan oo yaala ilaa 24 container oo kale iyo 30 ambulance oo aan ka howlgelinaa doolka ka dhiga bisha May agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Maxamed Cabdi Xirgeeye ayaa isna waxa uu faahfaahin ka bixiyay qalabkan yaala kaydka xarumaha dawooyinka ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland sharaf weyn ay noo tahay maanta inaad nala eegto qalab aanu la wareegnay oo aanu kala wareegnay hay'adan Swedish Som qalabkani wuxuu ka mid yahay qalabadii awalba inooga iman jiray wadamada Scandinavian-ka ay ku soo caawin jireen cusbitaalada 2 container oo qalab ayaan la wareegnay wuxuu iskugu jiraa qalab caafimaad sida sariiraha iyo mishiino sida ultrasoundada centrifugeyada iyo waxyaalo facilitieska sameeya sida wheelchairo iyo laydadka tiyaatarka qalliinka iyo waxyaalo badan oo caynkaas furaashiyo dhar wax caynkaas wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Cabdinaasir Cumar Jaamac ayaa isna xusay kaalinta ay wasaaradda caafimaadku ka jirto horumarinta caafimaadka Soomaaliland mudane madaxweyne ku-xigeen waa kaaga mahad celinaynaa booqashadaadan kooban ee shaqo aad maanta ku timi wasaaradda horumarinta caafimaadka gaar ahaan qaybta supply chain-ka ama istoorradeeda lagu kaydiyo qalab iyo daawooyin wixii qaran ahaan aynu haysano ku dheeraan maayo alxamdulillahi rabbil caalamiin qurbo joogta reer Soomaaliland dadaal aad u badan bay geliyaan sidii ay dadka reer Soomaaliland u soo gaarsiin lahaayeen marba wixii ay ka helaan dhulka ay ku nool yihiin ama qalab ha noqoto ama daawo caafimaad ha noqoto mahad aad u ballaaran baan u jeedinayaa Sweden Som dadaalkaadka u badan ay geliyeen inay qaran ahaan inaga caawiyaan in baahiyaha caafimaadka jira ay buuxiyaan anaguna wasaaradda caafimaad ahaan waxaanu ballan qaadaynaa inaanu insha Allah sida ugu fiican aan uga faa'iideysano alaabtayna soo gaadhay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa ugu dambeyntii halkaas hadal ka jeediyay ayaa u mahadnaqay ururka Swedish Som isla markaana ku tilmaamay jaaliyad wax badan u qabatay dalkooga waxaan aad iyo aad runtii ugu faraxsanahay inaan halkan maanta joogo meeshii stoorkii weynaa ee wasaaradda caafimaadka runtii lagu keedinay qalab iyo daawaba iyadoo aan la kulmay in 2 container oo community-ga reer Sweden ee la Swedish Som ay keeneen 2 container oo qalab ah oo runtii aan la socday warkooda hore madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu wasiirka ku amray markay u sheegeen in qalab loo baahayo qiimo leh la keenayo wasiirka ku amray in kharashka la bixiyo ay soo dalbadeen hay'adda soo dalbadeen runtii waxaa muhiimadu tahay sheegeen agaasimaha guud iyo wasiir ku-xigeenku in baahida iyo iskaabaan iyo baahideena iyo qalabka imanaya in iskaabaan baa muhiimadu noo taala iyadoo la soo dadaalay haddana haday baahida iyo iskaabi waayaan iyo qalabkii oo inoo maajkareen waayaan waxaynu u baahnayn waxay noqonaysaa hal bacaad lagu lisay iyagu aad iyo aad buu maaseen runtii soo dadaaleen wasaaraddaas haddana kulli eegi doonto waxay yimiday iyo waxaan qiimaha ku baxaya iyo sida maartay ay isu kaabayaan gabagabadii madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliya waxa uu soo kormeeray xarumaha istoordhada ee kaydka dawooyinka ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland halkaasi oo sharaxaad uu ka dhageystay howlwadeennada wasaaradda caafimaadka Soomaaliland kormeerka madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici waxa uu la xiriiray korqaadka iyo dadalgelinta howlaha caafimaadka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Salebaan Habeelaambad TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Hargeysa